السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواada channelkeena fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar channelka haddii horena la joogtana waa ku maasan tahay la sii joogitaankaaga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaal ku gaaray gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, gaar ahaan deegaanada muddooyinkii u dambeeyay halganka dagaal ee looga soo horjeeday kooxaha khawaarijta ay ka socdeen deegaanadaasi oo kala ah Wabxo, Wisil iyo Maxaas. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay madaxda gobolka, wasiiro, xildhibaano, oday dhaqameedyo, aqoon-yahano, arday iyo dhammaan shacabka qaybihiisa kala duwan. madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyay goobtaasi mahadcelin iyo dhiirigelin uga soo jeediyay ciidamada xoogga dalka iyo shacabka gobolkaasi. والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، maanta runtii aniga maalin aad iyo aad u weyn oo farxad weyn igelinaysa waaye inaan baxdo imaado waa farxad, dadkan inaan soo dhex istaago waa farxad kale, dikri salaam in laygu soo dhoweeyena waa farxad kale ayadana. culimmada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. waxaana haystana waa intaan. nimanku wiilasheennii ahaayeen, laakiin wiilasheennii oo la khalday, qalbiga iyo caqliga wax baas loogu shubay waaye. inta ay waxaasi qalbigooda ku jiro waa cadow. inta ay aaminsan yihiin waxa qalloocan ay aaminsan yihiin waa cadow. kii ka soo noqda ee inta baraaruga soo noqda waxaa la hubinayaa inuu ka tanasulay wixii uu soo noqda, laakiin waa wiilkeennii. dibaad dalkan dalan ahayn ma qabo, dadkaan dadan ahayn ma qabo, waa la khalday. maantoo dhan waa u sheegnay in la khaldo waaye iyo in la khalday. kii qaatay oo fahmay oo in la qalday qaatay ee soo noqdana waa wiilkeennii. kii qaadan waaye ee mabda'aasi maskaxda ku haystee aaminsan ee weli sii socdana waa cadow, waana la iska dhicin.